داريها إلى اللي يسنو مرتدى بإعمال عبد الشكور اللي قاسكا لكن هذا الروح سيرة يا سدح ملبا وكيلة الجريدة كنتم محل ونقلنا والجيش عبد الرحمن عبد الشكور مرسمة برامج كنا عاوة وحنقول وطلق لنا كل يسنو erigay qaaska maadaama oo wadamo badan uu tagay si dalka hooyo jaalinta Switzerland oo ugu waramo dhibaatooyinka jira xagga abaaraha dhibaatooyinka meelaha uu tagay goboladii iyo qurbajoogtii wadamadii uu tagay waxyaalihii uu ugu waramay ayaa nasiib waxaan caawiyay halkan jaalinta Switzerland inay nasiib u yeelato waxaan barnaamijkeena ku bilaabeen ayadaha quraanka waxaan halkan uga yeerayaa Sheekh Khadar سؤال القرآن كنوقفه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى هينوافع عيدها قرآن الكريم إننا إلهي نقدر قوة هذا الكيس وناكسن مغلات كنا عمل فلا رنت واحد التنبه هذا القدم رمايو روح الشرف نوع حتى هاي جليد سومالي رسوريش إنه نجلس وقيد كلو ولكن عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة أستاذ سودو شرف النوت هاي وان سودو ويننا إن شاء الله أنت سبتون. السلام عليكم. قبل الدارين هاي اللي يسنو مرتدى بإعمال عبد الشكور اللي قاسكا لكن هذا الروح سيرة يا سدح ملبا وكيلة الجريدة كنتم محل ونقلنا والجيش وعمرت هلك بصير وين عبد الله أما دوري سولو عليه هلك أويدا عبد الله بصير سفارة Soomaalida waddankan Switzerland iyo dhammaan marti sharafta rag iyo dumarba leh oo ka soo qayb galay xafladan quruxda badan ay samaysay jaaliyadda waddankan Switzerland gaar ahaan magaalada Zurich. waxaan leeyahay dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ismaatinkeena caawa oo meeshan aan isugu nimid ahmiyadda koowaad waxay saaran tahay soo dhoweyn oo aan soo dhoweynayno ergeyga gaarka ah cabdiraxmaan cabdi shakuur ama markii la soo gaabiyana AAW isagoo weliba ah gudoomiyaha xisbiga wadajir isla markaasna talabaadna waxay tahay haddii aan ku darsado soo dhoweyntaasi wax yaroo mahadnaqna waa ku darsanayaa. marka ugu horeysa waxaan leeyahay mudane cabdiraxmaan cabdiraxmaan cabdi shakuur kusoo dhawow waddankan Switzerland gaar ahaan jaaliyadda Soomaalida waddankan Switzerland waxaan leenahay gacmo diiran noogu soo dhawow. talabaad oo ah mahadnaqa wuxuu yahay cabdiraxmaan cabdi shakuur waxaa lagu xasuustaa halyeynimo waxaa lagu xasuustaa naftii hore 4 sano ugu dambeysay oo xilligii dowladdii ka horeysay halgankii dheeraa uu soo galay isla markaasna naftiisii uu u horay in qoriisu dhiibkii Soomaaliya lagu garan jiray hal nin barkinta hoosteedii inuu geliyey oo uu rabay qoriisu dhiibkaasi inaan maaragtay barkinta hoosteeda ay ku jirto wuxuu ka mid ahaa dadkii u halgamay
u mudaaharaaday u soo dhibtooday aniga hoosta waxaan ka mid ahaa dadkii xisbiga wadajir taageeri jiray ayaan ka mid ahaa runtii haddii xisbiga wadajir uu ku guulaysan lahaa oo madaxweyne xisbiga wadajir haddii uu ku guulaysan lahaa oo madaxweyne uu noqon lahaa cabdiraxmaan cabdishakuur waxaan hubaa jagada maanta uu hayo oo ergeyga ah isaga aniga inuu ii dhiibi lahaa maarta ayaan u haystaa marka waxaan leeyahay bismillahi raxmaani raxiim dhammaan kasoo qaybgalayaasha sharafta badan oo ka kala yimid gobolada dalka iyo wadamada deriska ergeyga gaarka ah xildhibaankeenna cabdiraxmaan cabdishakuur dhammaantiin waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaan nahay jaaliyadda reer switzerland ama gaar ahaan sulux waxaa sharaf noo ah kuna faraxsannahay mahadcelinna mudan walaalihii shirweynahan soo abaabulay gartay halyeyga afmaalka ah cabdiraxmaan cabdishakuur inay noo casuumaan si fikrado badan oo runtii bulshada ka dhex guuxay isagana uu aaminsan yahay aan isku dhaafsanno mar kale waxaan leeyahay walaalihii soo qabanqaabiyey iyo mas-uulka gartay ogolaadana inuu ka soo qaybgalo waxaan leeyahay waa mahadsantiin ilaahay ajarkeeda ha iwaafajiyo walaalaha ka socda safaaradda oo runtii aan ognahay inta ay noo jiraan saacadaha Geneva la isku jiraan mar kasta marka la casuumana waqti badan juhdi iyo dhaqaale soo geliya imaadkan inay nagu garab istaagaan hawsha ka socota markasta sulux waxaan leeyahay kana waa mahadsantiin hadal runtii odayaal badan nooga dambeyn doono walaalaha kalena waxaa leeyahay dhammaantiin waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ergeyga gaarka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gudoomiyaha xisbiga wadajir xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur wakiilka safaaradda soomaalida ee switzerland madaxda jaaliyadaha kala duwan kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan soo dhaweynta ah rag iyo dumarku dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo guddiga qabanqaabada runtii xafladdan juhdiga badan soo geli iyo waqtiga oo runtii hawl muhiima qabtay mar walbaan runtii u taagan madaxdana soo booqata waddankan soo booqata inay soo dhaweeyaan ayagana waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin intaas kadib waxaan malaynayaa xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur wax badan isaga sheegi mayno dhammaantiin waa taqaanaan wuxuu ku astaysan yahay dib u dhiska iyo geedi socodka iyo dimuqraadiyeynta Soomaaliya waa raggii runtii lafdhabarka u ahaa u soo dhabar adeegay noloshiisa iyo naftiisa riskiga u geliyey danta ugu weyn uu ka lahaana waxay ahayd Soomaaliya inay noqoto waddan hana qaada oo ka mid noqda wadamada adduunka ugu horumarsan mudane cabdiraxmaan cabdishakuur waxaan leenahay waa ku mahadsan tahay dadaalkaas nafhurnimada ah oo aad samaysay dhammaan ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad kaaga mahad celinayaan haddaan u soo noqdo marka arrimaha hadda oo sida khaaska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu xil saaray gargaarka waxay la tahay waa arrin muhiim ah oo ummadda Soomaaliyeed ay u baahneed oo runtiina kaalin weyn ka geli doonta dadka dhibaataysan sidii kor loogu qaadi lahay waxaan ayagana uga mahad celinaynaa dhammaan hawlihii uu soo qabtay safaradii uu soo galay iyo meelihii uu runtii ummadda Soomaaliyeed uga soo shaqeeyey mudane cabdiraxmaan cabdishakuur waxaan ku leenahay dadaalkaaga halkaas ka sii wad annagu haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Switzerland waxaana ku yaqaanaa naga go'an inaan garab istaagno dadkeena iyo dalkeena أنا كشقينه سيدي بقول نقول هاي ووطن حرام مرسم هذا القصيد يعني ما يوم مركلة مدن عبد الرحمن الشكور حلوان وحنقولين هاي قصيد وجاريد سهلة وما فيكم بسم الله الرحمن الرحيم أنا وكوحد اليوم مقع سفارة كوحد اليوم مقع تنجير أبي محمد صالح
ku hadlayo magaca diblomaasiyiinta saaxiibadayda inuu shaqo wadaaggan nahay marka koobaad allah ayaa mahad iska leh marka xigta waxaan u mahadnaqayaa akhyaartii odayaashii dhalinyaradii soo qabanqaabiyey xafladatan aadka iyo aadka u quruxda badan caawa waxaa sharaf weyn noo ah inuu nala joogo marti noo yahay kabiirka weyn ee siyaasadda kabiirka weyn ee siyaasadda iyo arrimaha bini'aadanimada mudane xildhibaan wasiir hore ergey gaarka ah ee gurmadka abaaraha ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xildhibaan cabdiraxmaan cabdi shakuur xildhibaanka sida looga sheekeeyey iyo ka badanba waxaan aad u filayaa inaad ka wada dharagsan tihiin caawa haddii la bilaabo in laga sheekeeyo inaysan xafladda noo gabagaboobayn midda xigto caawa xafladatan munaasabadan gogashaan waxay u fidsan tahay nabadoon cabdiraxmaan cabdishakuur intaa kadib waxaan rabaa xildhibaanka inaan wax yar ooga sheego jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka switzerland dalka switzerland waxaa lagu tiriyaa wadamada adduunyada ugu quruxda badan markaa ka u fiiriso waxaad arkaysaa bura dhaadheer oo inta badan cagaar ah biyaha dhex maquuqayaan hoos markaad u fiirsan waxaad arkaysaa laamiyo waaweyn oo waasac ah nadiif ah caafimaad iyo waxbarasho tayo taamicneed waxaa oola jeedaa jaaliyadda soomaalida ku nool dalka switzerland dhinac markaad ka fiiriso dalka ay joogaan ayay u ekaadeen waa dad aad u qurux badan ifayo wejidahooda nuurayaan markaad fiiriso ay saaxiibtinaan marna aad ka daaliyo dhinaca kale markaad hoos u fiirisana waa dad niyad wanaagsan firfircoon isku xiran shaqaysta xiriir aad u qoto dheer oo ballaaran la leh safaaradda soomaaliya ee Geneva arrinta ayada ah kana iska leeyahay ma aha caddeyn caan waxa uu ah sida hoolka kan aan joogno oo uu camiran yahay ayada oo laga kala yimid dhammaan gobollada kala duwan ee dalka Switzerland halkii aan ku sii badanin waxaan ku leenahay mudane xildhibaan ku soo dhawow magaalada Zurich ku soo dhawow dalka Switzerland ku soo dhawow xafladatan ay soo agaasimeen waxgaradka reer Switzerland waxaan ka codsanayaa inaad si wada jir ila soo dhaweysaan ergey gaarka ah وزير هورا حلبان عبد الرحمن عبد الشكور. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa jaaliyadda Switzerland iyo guddigii isku xil saaray qabanqaabada kulankan iyo intii ka qayb qaadatay runtii qof walba karaanka uga qayb qaatay dadaalkiisa waa uga mahad celinayaa magaaladan waxaa imid axaddii waxaan u imid inaan ka qayb galo shir lagu qabtay Geneva oo UN-ka ay qabteen oo howlaha aan hayo la xiriiray ujeedka koowaad oo aan rabay in halkaan u imid wuxuu ahaa in aan shirkaas aan ka qayb galo 2 maalin oo socday arrimaha geeska Afrika iyo Soomaaliya ku saabsan ee abaaraha iyo isbeddelka cimilada iyo badqabka cuntada la xiriiray kabacdina waxaan kulan la lahaa dawladda dalkeeda muwaadinka ka tihiin tiina badan ee Switzerland
wasaaraddeeda arrimaha dibadda iyo horumarinta caalamiga ah Switzerland waxay ka mid tahay dowladaha taakuleeya Soomaaliya gaar ahaan xagga dhismaha nabadda iyo dowladnimada mid saddexaadna waxay ahayd in idinka aan kulanno oo jaaliyadda safaradeeda dhan ee dibadaha waxay daarnaayeen saddexdaas qodob in aan jaaliyadda la kulmo oo aan ku dhiirigeliyo xasuusiyo xajmiga dhibaatada ee dalka taala waad ka warqabtaan dabcan ahlaa leedihiin waa liin soo wacaa waa liin la hadlaa arrin inka qarsan ma aha laakiin in lays xasuusiyo la soo dhoweeyo waxaan inkula dardaarmayaa waad aragteen dhibaatada horena waad uga warqabteen in aad intii karaankiinna iyo sida isku abaabuli kartaan iyo guddi samaysataan oo gurmadkaas aad qayb ka noqotaan dalkii iyo dadkii lagu gurmanayo dhiirigelintaasna runtii waxyaalaha aan u imiday ka mid ahayd dalkeenna sidaad la socotaan fursadaha iyo caqabadaha ama dhibaatooyinka waa isbarkan yihiin waa isla yaalaan waa dal fursado fiican leh markii dhinac laga eego xagga khayraadka dabiiciga ah xagga dhulka iyo baaxadda uu leeyahay xagga dadkiisa say u yihiin dad maaragtay isku diin iyo dhaqan iyo luqad homogeneous ah xagga dadka say isugu dhaqan u yihiin oo ay u yihiin dad isleh iyo dadka naftooda inay yihiin dad dhallinyaro ah oo boqolkiiba 70 ka badan Soomaaliya dadkeeda waa dad dhallinyaro ah dad hadda waxaa laga sheekeynayaa dowladaha khaliijka inay 70-yadii dhammaadkeedii ay ahaayeen dad aan waxba haysanin haddana dad hodan ah waxay ka faa'iidaysteen Soomaha khayraadkii dabiiciga ahaa ay haysteen weliba ayaga dad idinkoo kale ah oo diaspora oo dibadaha tegey oo waxbartay kuma jirin oo ama khibradda dalka ay ku nool yihiin ama waayo aragnimada soo helay kuma aysan jirin marka dad fursadaha hadda annaga aan haysano oo kala haysta ma aha oo dad malaayiin ku dhow millions ka badan inta dibadda u soo baxeen wax ku barteen ganacsi ka abuurteen nolol ka samaysteen dalkoodii ay gadaal ugu noqdeen ma ahayn ayagoo saas ahayn haddana ka faa'iidaysteen khayraadkii ay haysteen dalkan hadda aad ku nooshihiin Switzerland dad khayraad dabiiciya leh ma aha sida idinkaba ogtihiin dadkiisa ay kala diiman yihiin kala luqada yihiin waa ogtihiin oo kagama sheekeynayo 26 kantoona meeshaan ka dhisan waagii waxaa la yaabay federaalka dadka dirsaanahay aniga dabiiqadii 90kii jaamacadda markaan dhiganahay bilowgii 2000 masterkii wuxuu ahaa federaalka marka wadamada aan federaalka u dirso kamid ah waan la yaabi jiray marka 26 kanton oo mas'uulka dawlad goboleed iyo 3000 oo municipality oo dawlad hoose ah iyo dawlad xukuumadeeda 7 qofood oo xilka midba sanad haynayo afar luqadood official ay ka tahay dadka ay kala diiman yihiin khayraadna aan lahayn wadanka dana adduunka u hodansan ku jira maxaa lagu keenay spiritka lagu keenay muxuu yahay waxaa lagu keenay aqoon in aqoonta mudnaan la siiyey in kartida mudnaan la siiyey oo 4.5 iyo reeheb mudnaan la siinin marka waa la baaba'aya kuwa waxay dhihi doonaa ma taqaanin maya waxaan waa nala ka hor joogaa gaaladaa naga hor taagan dowladda hebelaa naga hor taagan balaayo kalaa noo tashatay waxayna inaa cuno lama rabo Soomaaliya waa loo tashaday waxaas inay akhrinaayeen wax ka jira lama arko cid noo tashatay male waxaaga daa la soo baxaysid khayraadkaaga adiga aan maamulinaysid dalkaaga aad horumarsanaysid maxaa Soomaaliya kaliya lagu tashaday muslim oo ma qadala muslim la horumarsan oo nool ma loo tashada ayagani haddana Afrika oo ma qadala Afrikaana horumarsan Kenya dariskeena xornimada ka hor qaadanay Kenya anaga 60kii aan qaadanay ayaga 63 qaateen maanta ciidankooda nabad ilaalin oo ah wadankooda wada qaxna madaxdeena dhan asay degan tahay asaan ku baxsanaa
asaga adduunka security council ee meel walba nooga hadlaya xornimada annaga ka hor qaadanay waa inaan su'aalo adag aan isweydiino waay maxaan sida u nahay maxaa say ku dhici kartaa dad kala diimo ah kala af ah kala dhaqan ah ya kala maaragtay gobollo ah kala deegaano ah inay dowladda hadda idinka ah ku dhex nooshiin inta maamushaan ay saas u maamushaan ay hodan u noqdaan say ku dhici kartaa waa inaan wax ka baranaa ma Switzerland inaan isaga noolaana keliya maaha waa inaan wax ka baranaa markaad dhagaysato Yurubiyaanka qaarka waliba climate-ka iyo green-ka waxay ku leeyihiin waa fiican tahay ruushka iyo shidaalka goosto dadka waxay xoogga saarayaan in energy kale la raadiyo oo laga maarmo shidaalkii ma ogtahay marka haddii marka shidaalkii laga maarmo annaga shidaalka tegeynayna marka intuu shidaalka macnaha leeyahay waaba 20 sano ma ka badnaba waa inaan la soo baxnaa dhulkeennana waa ka buuxaayay marka kale waa in mahad celinayaa wacyigeennana aan kor u qaadno aan isku dayno inaan mar kasta ismuraajaceyno si aan dee duruuftaan ku jiri karnee saanna kuma noolaa karnee dadkeennana saas uma noolaa karaan waddankeenna oo qaniga oo khayraad ka buuxana kama gaajoo karno see ku imaan kartaa marka waa inaan caqligeenna attitude-keenna behavior-keenna waxa dhan aan bedelnaa si kasto oo iskugu dayno inaan institutionada dalkan yaallo dad badan oo diaspora way dadaalaan waxay isku dayayaan inay koobiyayaan sida Swiss u shaqeeyo sida oo Ingiriis u shaqeeyo sida Mareykanka u shaqeeyo koobiga waa la sameyn karaa laakiin waxaan la koobiyay karin in sheega waa fikir ma la koobiyay karaa waa dhaqanka hab dhaqanka culture lama koobiyay karo caadaadka lama koobiyay karo inaad subaxii shaqada aad jecesho shaqo u soo kalaado oo shaqada aad qof jecel aad tahay shaqadaada ixtiraamayo wax la koobiyi kara ma attitude-ka behavior-ka dhaqanka culture-ka waxa la ku magacaabo waxaas lama koobiyi karo runta inaad sheegto oo cadaalad inaad ka hadasho inaad runta sheegto oo waarta dadka hadda qof been ku sheega maarteen ilaahay kiyaaba qof hadda been ku sheega maarteen suuso ku dhex nooshiin qof inta ku gool soo kala been ku sheega wili maarteen ma jiro dadka waa ka koraan waxaas waxa ma taqaana dhaqankaas waaye midkaasna annaga waa in sheego ku cilna diinteenu ku jira laakiin diintiya waxa loo kaga dhigay kaliya inay tahay waxyaalo oo fiqi ah iyo waxyaalo adag iyo maanta oo sheekhi wuxuu ka hadlaa gabadha iyo saan hal yeelo inta ka dhaco iyo adag inta mar iyo kan waxyaalihii values ka ahay qiyamka ahay oo horumarka bini aadanka asaas u ah oo diinteena ay la timid xoog lama saarayo oo cadaaladda ay kamid tahay oo sinaanta ay kamid tahay oo xuquuqda ay kamid tahay oo mas'uuliyaadka ay kamid tahay oo maaragtay sharciga inuu sareeyo ay kamid tahay waxaasoo dhan kama hadlayaan dadkii marka waa mahadsantii waan ku dheereeyey mar kale waan ii mahad celinayaa waana ka xumaa inaan waqti kooban aan ula joogo intaan anagoo ka badan aan sheegaynaa waa mahadsantii wasalaamu calaykum waxaan imaanay qaybtii dumarka marka waxaan rabnaa dumarka inaan siino inay sawirro la galaan fayraska ayaga ugu horeeyo ku soo dhawaada